السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلامة أخيارته كحرا يوتيوبكم عن العقال تيادا أن قرصونين بلشد عالمكو أكوكال هرمرتي لو كلا حدارد بديي دقالها إيو وحصوصار كان لوغو كلا تغيي أما لوغو كلا بطي واوح أخرنتا لكن إن بدن أو بلشد إناه وحمودا إنيسان آد ugu baraarugsaneyn wax akhriska waxaan booqday qayb kamid ah maktabadaha jaamacadaha ku yaala dalka markaad maktabadahaas tagtid xaqiiqdii waxaad u tagaysaa iyaga oo faaruq ah ama iyaga oo 2 iyo 3 qof ku jirto waxa arkaysaa marka qaar maktabada banaankeeda ardada oo break ku qaadanaya waxay falanqeynayaan oo waqtigooda ku bixinayaan wax aad iyo aad cajiib u ah waxyaabo aan wax micno ugu jirin waxaan falanqeynayaan ciyaarihii dhacay ama kuwa dhici doona maanta bal ka waran maktabad dhan ayaa agtaala oo buugaagta ay ka buuxaan markaas waqtigooda waxay ku dhuminayaan dad aan iyaga aqoon inay ka sheekeeyeen iyo inay ku doodeen aan kala garanayn dhanka kale daan ka eegno qofkii buug wata oo wax akhrinaya waxa loo yaqaanaa qof wax barasho ku jira oo jaamacad dhiganaya mararka qaar marka buug adoo wata ay ku arkaan oo magaalada dhexmaraya waxay ku leeyihiin oo wali maadan dhamayn miya jaamacadii mase kulliyad kala bilowday oo micnaha markii wadankeena la joogo inta badan buug qaadashada ama wax akhrisku wuxuu astaan u yahay in qofkaasi uu jaamacadii dhiganayo ama iskuul uu dhiganayo insha Allah taala waxaan rabaa inaan maanta halkan kugu la wadaago 5 faa'iido oo uu leeyahay wax akhrisku ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta أخياري فائدوينك أوليها أخرسكم معها واحد لوسو كوبي كرا موقال قرى سيدو كالي واحد واحد لوسو كوبي كرا بوغ أما مقال لغا قرى بلس إن شاء الله تعالى وحان ربنا كان كولو وداغو 5 قضب وان إسلايا هاي قفكي 5 تان لما يستقو داوضا وحن أيا إسكا بديري دونا فهنكي أو كهيستي وحاقرسك قضب كينا كوباد وفائدو أوليها وحاقرسك وحن نغانا هيا وحاقرسك وحو الدور وين كقاتا قولها أرديق inta badan waxa YouTube kan ku xiran waxay u badan yihiin arday jaamacadaha dhigata ama iskuulada dhigata guulaha wax ardayga waxa qayb weyn ka qaata wax akhriska kama hadlayo arday inta 4 su'aalo soo xifdiyay 4tii su'aalood imtixaanka lagu keenay oo mararka qaar waxa arkaysaa arday dhahaysa ama waxba ma akhriyo xilliga imtixaanka la joogo ayaan intii macalinku calaamadeeyay fiiriya markaas wuxuu ku leeyahay soo aniga hebel oo wax akhris badan ka dhibca badan marka ana wax akhriska aan rabo inaan ka hadlo ama guusha aan ka hadlayo ma ahan midda imtixaanka ku salaysan waxa tusaale aan soo qaadanaya gabadhan la yiraahdo Malala Yusuf waxay buugeeda ku cadeysay ay Malala buuga ay qortay ay nolosheeda ku saabsan waxay ku cadeysay xilligii ay ku noolayd Pakistan in iskuulkeeda ayagu ay kaalinta u gali jirtay oo qof ka soo daba dhawaado oo kaalintaas ku haystaana uusan jirin sababkuna wuxuu ahaa 10 buug oo ka dheeriya daraasaadka iskuulka lagu qaato ayaan sanadkii akhrin jiray barigii dambe London ay u guurtay marka waxa leedahay laakiin London markaan imid waxaan ku sigtay inaan dhaco sababtuna waxa weeye dad 50 buug iyo ka badan oo daraasaadka iskuulka si dheeriya sanadkii akhrinaya ayaan u waan dareemi karnaa marka muhiimadda uu leeyahay ardayga akhrisku uu leeyahay halkan waxaan rabaa inaan xuso markii la leeyahay door weyn ayuu wax akhris ka qaataa guulaha ardayga inaysan muhiimaddu kaliya ahayn slides yarka jaamacadda lagu dhigo ama 4 xabe sabuurada lagu saaro ee dulliga ah dhamaatay qadiimiga wax laga tagay ah ee maalin walba in macalinku nahaagay 4 sadar sabuurada noo saaro ee 4taas sarintaanu akhrina aan isku malayno dad nooc kala ah kama hadlayo marka akhriska noocaas waxaan ka hadlayaa qof maskax furan
oo intii loo dhigay iyo 10 jibaarkeed akhriya. Akhyaari qodobkeena labaad wuxuu noqonayaa wax akhrisku wuxuu kordhiyaa aqoontaada. Dunidu maanta waxay ku socotaa xawaare aad iyo aad u dheereeya. Qofka inta cilmi barta meeshiisa iskaga ekaada sida dhalinyarada maanta ay sameeyaan in qofku inta jaamacadda dhameeyo uu yiraahdo kulliyad heblaayaan ka baxay isku maleeyo nin qatar ee jaamacad dhameeyay meeshiisa uu iska 3 sano 4 sano 5 sano laga soo wareego uu leeyahay kulliyad heblaayaan ka baxay uusan sameynaynin wax horumar oo akhrisa uusan sameynaynin. Haddii aad tahay qofka noocaas ah runtii muddo yar kadib xogta aad xambaarsan tahay ee aad baratay waxay noqonaysaa xog duugooday wax caalamku ka tagay wax aan adiga iyo wixii aad u sheegi lahayd micno ugu fadhin. Marka aqoontaada si aad u horumarisid waa inaad noqotaa qof akhrista ah oo maalin kasta wax cusub siyaasanaya. Qofka akhristaha ah waa qof maalin kasta noloshiisa wax cusub ku kordhinaya. waa qof dareensan in dunidu ay socoto oo wixii shalay uu bartay aysan ahayn wax ku filan ee u baahan yahay inuu maalin kasta noloshiisa u horumar gaarsiiyo. Marka wax akhrisku wuxuu dhisayaa aqoontaada ayuu dhisayaa. Waxaad noqonaysaa qof caalamka la jaan qaadaya oo maalin kasta meesha caalamku uu marayo la socdo. Qodobkeena saddexaad akhyaari wuxuu noqonayaa wax akhriska waxaa laga dhaxlaa khibrad. runtii markaan u akhrinayno buugaagta ay qoreen dadyowga kale waxaan ka dhaxlaynaa khibradooda. waxaad dhuuxaysaa oo aad qaadanaysaa waxyaabo waqti badan kaaga bixi lahaa ayaad waxaad ku baranaysaa si sahlan. tusaale ahaan haddii aad soo gadatid buug oo aad akhrisid buuggaas waxaa laga yaabaa buuggaas qofkii qoray inuu lahaa khibrad 30 sano ah. mawduuca uu ka qoray inuu u lahaa khibrad 30 sano ah. marka 30 sano adiga waxay kugu soo gashay maalmo kooban. marka qof intuu wax ka akhris badan yahay wuxuu ka kasban og yahay oo ka helo og yahay khibrad. uu ka khibrad badnaanaya. qof intuu ka wax akhris badan yahay uu ka khibrad badan yahay. sababtu waxa weeye intaas oo qof oo kala duwan ayuu khibradahoodii haystaa. halka laga yaabo qofkan inuu hal mar inta wax akhriyay oo halkaas khibrad noloshiisa u isticmaalayo. akhyaari faa'iidada afraad aan eegayna duulahan waxay noqonaysaa wax akhriska waxaa laga dhaxlaa kala shaandhayn. qofku inuusan noqon qof hay raaca. qof wax kasta oo loo keeno haye iska yiraahda. qof koox kasta oo socota ay maankiisa ku shubato wax kasta ay doonayso. qof buug kasta oo akhriyo ama wax kasta oo arko u qaata inay yihiin wax sax ah. wax akhrisku wuxuu ka badbaadinayaa halista hay raacnimada. inaad wax walba iska tiraadid. qofka wax akhriya waxay maskaxdiisu awood u yeelataa inay kala shaandhayso waxyaabaha ama fikradaha uu buugaagta kale ka akhriyo ama se waxyaabaha ay saaxiibadiis ula yimaadaan. wuxuu awood u yeeshaa inuu waxyaabaha kala dhigdhigo falanqeeyo midba meel ku xiro xalka ugu wanaagsanna uu ka qaato. akhayr qodobkeena ugu dambeeya uguna muhiimsan wuxuu noqonayaa wax akhriska waxaa laga dhaxlaa qoraanimo. waxaan ognahay in qoraanimadu ay tahay xirfad inta badan dadku ay jecel yihiin oo ay ku hamiyaan in noloshooda mar ay noqdaan qoraa. laakiin inaad qoraan noqotid waxay ku xiran tahay inaad marka hore noqotid akhriste. waa tii oraahdii ay ahayd akhristaha maanta waa qoraaga biri. marka si aad u noqotid qof wax qora marka hore waxaa loo baahan yahay inaad xog badan heshid. inaad in badan wax akhrisid. waxyaabahaas aad akhrisay ayaad hadhow insha Allah tacaala waxaad noqonaysaa mid bulshada la wadaaga. haddii aad doonaysid inaad noqotid qoraa waa inaad marka hore noqotaa qof wax akhriya. waxaan ku soo gabagabeynayaa akhyaaray maantay caalamku awoodiis waxay iskugu tagtay in wax la akhriyo. dadka xadaarinimadooda iyo wax soo saarkooda iyo maskax banaantooda dhammaantood wax iskugu tagtay in wax la akhriyo.